Adiga oo la soo toosay walaac subaxdii. Maxay tani ugu dhacdaa shakhsiyaadka qaarkood? Miyaad la soo toostaa balanbaalis calooshaada ama wadnahaaga ayaa garaaca ka hor intaanay maalinta bilaabin? Kaligaa ma tihid walaaca subaxda waa shay aad u dhab ah oo aad uga baahsan inta aad malaynayso. Hadday tahay welwelka jadwal cidhiidhi ah, wakhti kama dambays ah, ama cabsida guud ee ah inaad wax ka qabato maalin kale, walaaca subaxda ayaa midabayn kara wax kasta oo kale. Waa maxay welwelka subaxdii? Haddii aad jeceshahay warbixinta noocaan ah, fadlan guji badhanka subscribe si aad u hesho warbixino badan. Ha iloobin inaad nagu soo biirto. Welwelka subaxda waa dareenka kacsanaanta ama welwelka oo kordha isla markaaba marka la tooso. Walaaca, sida uu qabo kaaliyaha jaamacadda Washington ee cilmi nafsiga iyo sayniska maskaxda Rebecca Cox, waxaa laga yaabaa inuu kor u kaco subaxda iyo sidoo kale badtamaha maalinta ama kadib maalinta, iyadoo ku xidhan saacadda gudaha ee qofku. Kala duwanaanshiyahani waxay la xiriiraan kala duwanaanshiyaha wareegga dabiiciga ah ee 2-4 saac ee jidhka kaas oo xakameynaya hurdada, hormoonnada iyo niyadda. Tusaale ahaan, shimbiraha hore waxay u muuqdaan inay dareemaan walaac badan subaxdii, halka guryaha habeenkii ay u muuqdaan inay dareemaan walaac dheeraad ah maalinta dambe. Sababta ka dambaysa welwelka subaxda. 3. Mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan waa jawaabta baraarujinta cortisol. Cortisol, oo caadi ahaan loo yaqaan hormoonka walbahaarka, jir ahaan wuxuu kor u kacaa 3-4 daqiiqo kadib markaad toosto. Tan waxaa loogu talagalay in jidhka lagu dareemo feejignaan iyo tamar. Laakiin shakhsiyaadka la kulma walaaca joogtada ah ama la ildaran xanuunada walaaca, kor u kacani wuxuu kor u qaadi karaa dareenka cabsida iyo argagaxa. Qodobka kale ee muhiimka ah waa tayada hurdo yaraan. Xarumaha xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada waxay ku nuuxnuuxsadaan in hurdo la'aanta ama hurdo la'aanta ay saameyn xun ku yeelan karto fayoobida maskaxda. Maskaxda dadka hurdo la'aanta ah ma awoodaan inay si wax ku ool ah u maareeyaan shucuurta, sidaa darteed waxay u badan tahay in welwelku uu gacanta ka baxo marka aad soo kacdo. Calaamadaha walaaca subaxda. 2. Calool xanuun, culays ama cidhiidhi laabtaada ah, madax xanuunka, wadna garaac, inaad maskaxdaada ku hayso fikrado tartan. Sidee loola tacaalaa welwelka subaxda? 4. Khubaradu waxay kula taliyaan wacyiga, wax ka beddelka habdhaqanka iyo caadooyinka hurdada ee wanaagsan si ay uga caawiyaan qofka inuu la qabsado walaaca maalinta hore. Kuwa soo socda waa xeelado la samayn karo. Jooji oo ka fikir. Fikirkaagu isla markiiba ma ku baratamayaan markaad toosto? Qirashada in aad ku xayiran tahay qaab walaac ah waa tallaabada ugu horreysa ee lagu xakamaynayo welwelka subaxda. Macnaheedu maaha in ay wax khaldan kugu yihiin. Caadiyan waa fal celin ku saabsan qaababka cadaadiska nafleyda iyo shucuureed. Adigoo aqoon dheeraad ah u leh wareegyada jidhkaaga iyo isdaryeelka joogtada ah, waxaad subaxaaga ka beddeli kartaa fowdo una beddesho ula kac. Maalinta ku bilow dhaqdhaqaaq. Jimicsiga fudud, sida socodka, yoga ama iskala bax tartiib ah, wuxuu soo dayn karaa xiisadda wuxuuna dejin karaa niyadda isagoo kicinaya hormoonnada dareenka wanaagsan. Isla markiiba ha qaadan caffeine. Caffeine waxay hawlgelisaa habdhiska dareenka, taas oo kor u qaadi karta dareenka walaaca. Isku day inaad subaxda ku bilowdo biyo diiran, shaaha dhirta ama smoothie nasasho leh. Ku celceli neefsashada qoto dheer iyo miyir qabka. Naftaada oo ku qotonta neefsashada ama fekerka ayaa dejisa habdhiska dareenka. Xitaa fadhiga neefsashada ee 5 daqiiqo ah ayaa la dareemi doonaa. Cunto dheeli tiran. Sonkorta dhiigga ee hooseysa waxay soo celin kartaa ama ka sii dari kartaa calaamadaha walaaca. Ku bilow maalintaada cunto ka kooban borotiin, karbohaydraytyo isku dhafan, iyo dufan caafimaad qaba si ay kaaga caawiyaan inaad tamar yeelato oo aad niyad wanaagsan hesho. Dib u dhig wakhtiga shaashadaada. Ha furin iimaylada, fariimaha ama wararka isla markaad toosto. Kicinta degdega ah waxay kordhin kartaa welwelka waxayna kugu reebi kartaa dareen degdeg ah. Bilow joornaalka ama dhagaysiga muusiga dejinaya. Caado subaxii oo joogto ah, nasteexo leh, sida joornaal, muusig ama daqiiqad nabdoon, waxay la xiriirtaa badbaadada iyo isku halaynta maskaxda.